dulcad iyo kaamka waxaad arkaysaa dad badan oo soo socda oo soo sunsuwaya iyagoo u sii socda xagga biyaha oo ka yimi xeradii iyo kaamunkii oo doonaya inay biyo soo dhaansadaan dadku gaadiid walba oo isticmaalayaan wixii u suura gala dameero baabuur lug iyo wax allaali wixii u suura galaba si ay u gaadhaan meesha ugu horraysa ee ay ka helayaan hooy iyo meel dadkoodii ugu dhow yahay halkani waa qiyaas 15 kilomitir oo u dhaxaysa magaalada Harta Sheekh iyo kaamka dadku degan yahay ee Dulcad leedahay وتعالي من حيث الكثير أنا تبي أقول halkan waa biliga xerada Dulcad halka dadku degan yihiin afkeeda soke dhererkeedu waa 7 kilomitir يرجع تبع الله كويس Yeah. Yeah. waxaad aragtaan dadka qaarkii oo iyagu waabab iyo meel ay jalaantoona haysan oo bal cidla fadhiya iyadoo dhulku uu rooban yahay oo ay roobab da'ayaan dhibaataduna aad u badan tahay sidaynu hore u soo sheegnay waxaad aragtaa dadka qaarkii in aanay haysan meel ay galaan iyada oo roobabow badan ay da'ayaan dhulkuna uu ban iyo dhaxan yahay
يا shidaalka keliya halkan lagu shidaalsadaa ama wax lagu shitaa waa xaabo xaabaduna iyadoo dhulbana ay tahay waa qaali sidaa aawadeed waxaad aragtaa dad waaweyn oo xaabadii jeexjeexaya si ay wax ugu karsadaan markii ay dadka ku yaraadeen ama ay u suurogeli waayeen inay helaan qiimado ama teendooyin ay galaan waxaad aragtaa in ay aqal soomaaliyadii hore kusoo noqdeen taasoo ay weliba aad u adagtay sida loo helaa urursiga aqal soomaaliyada iyada oo wixii maatiya iyo dumar iyo carruuriguna ay galaan meelaha oo ragga badankiisu ay yihiin wax banka seexda rajadaa waddankiina ka qabtaan waxanka inaad dhaqso ugu noqotaan rajadaa waddankiina ka qabtaan inaad dhaqso ugu noqotaan waa sidee haa ilaahay baa baryaysaan aadna ugu rajo weyntiin ما إن شاء الله صدق ساوي نقول إن شاء الله تعالي ما فيش هاي والله ما دركش dadkan oo tiradooda ku dhowdhowdahay ilaa 270,000 oo qof mushkiladda keliya ee badanaa haysataa waxay tahay biyo la'aan halkaas oo biyaha looga keeno meel u jirta 120 kilomitir nasiibanaha waxaa hadhiya habeen roobka ayaa ku da'a iyagoo ka soo dhaansada harooyin iyo dhul godgodan oo aad uga fogeen sidaad arkayso waxaad u jeeddaa iyadoo dadku ay soo dhaansanayaan qof walba wixii ugu weel haystay sida aragtaan dadku waxay ka soo dhaansanayaan harooyin uu roobku ku da'ay iyadoo mushkiladda ugu weyn ee haysataa ay tahay biyo la'aan iyadoo biyaha looga keeno meel u jirta 120 kilomitir oo ah jigjiga ummadda meesha ku nool tiradooda ilaa imika waxay tahay 270,000 waxaad arkaysaa waxa weeyaan xaabadii oo ah shidaalka keliya ee meeshan lagu isticmaalay iyagoo dadku dhowr kilomitir meel u jirta u doonanaya kaamka dadka aad arkaysaa waxay ahaan dad meel dugsoon iyo magaalo aan xaabo la shidan ku noolayn hase yeeshee waxaad aragtaa in taliska iyo dhawaa 3 ay dibadda u soo saartay waxaad aragtaa dadka badankiisa inay kabala'aan u kala lugeynayaan magaalooyinka iyadoo ay waxay siiteen xataa kabihiina ay dhexda kaga soo lumeen حمدا هوي حاجة قوتي هوي حاجة قوتي بنا يا وقرقي لنا قرانيسان كم هو يدين سان غنيسان ايه يا ساعة سايسان
حافتي من حاجة يدرقيسة ايه عربسيو راي هذا halka lagu buugsan yahay aragtaan waa halka dadku uu ka qaadanayo teendooyinka oo galo iyada oo dadku ku farabatay teendooyinkuna ay yar yihiin marba intii timaado la fiinayo dadka faraha badan ee sii sunsumaya waxay ku socdaan dhulkii laga qaadanayay teendooyinka iyo cuntada dadkana waa inta degtay ee helay teendooyinkoodii iyo cuntadoodii ee degan ee ku sugayeen ilaahay nabad ku celiyo